أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم halkan waxaa ka hadlaya nuur dhimbiil oo had iyo jeer aad uga barateen sheekadii ahayd alf leyl waleyl maanta runtii waxaan rabay in mowduuca maanta beelweynta reer sheekh muuse aan halkan uga soo jeedinayo inay tahay in ummaddu ay ogaato wax kasta oo khayrku uu ku jiro taa waxaan uga jeedaa inuu qofku ogaado dadka xididka yihiin xigaalka ay yihiin xigtadana ay yihiin saddexdaasoo marka la isku soo daro si kooban soomaalidu u taqaano qaraabadu waa intaas intaad intaa wadaagtaan waa qaraabo beelo fara badan oo aynu qaraabo nahay koonka korkiisa ayaa jira marka runtii waxyaalaha wanaagga ee dadka walaaladaaya ku kacaan waa inaad u hambaliyaysaa taasna aad iyo aad waxyaalaha faa'iidooyinka ayay ka mid tahay oo ah carruur iyo ciroole rag iyo dumar in allaaliya intii beesha aan ka soo jeedo ee reer sheekh muuse dareed ah inay wax ka ogaadaan beelaha kale xitaa walaaladooda abtirsiintooda magacyadooda siday u kala baxaan runtiina yacni waxa weeyaan aad bay faa'iido weyn u tahay marka halkan waxaan idinku soo fadhiistay wax badan idin odhan maayo laakiin waxaan halkan idinku soo fadhiistay bal inaan idin yar taxliiliyo dadka qaraabooyinka aad tihiin sheekadana waxaan ku keenay maalin dhoweyd waxaan arkay oo aad iyo aad aan ula dhacay runtii beelweynta loo yaqaano reer sheekh madhibo goob bay isugu yimaadeen runtiina waxay aad iyo aad u sameeyeen wax bila'aadannimada u fiican oo ah haani gun bay ka tolantaa yacni inaad dadku gun samaystaan oo yacni meelay ka duulaan inay helaan runtii waxay magacaabeen ugaas guud oo la yidhaahdo ugaas jamaal ugaas cabdi ducaale runtii beelweynta reer sheekh madhibe waa beelweyn aad iyo aad u weyn run ahaantii beeshaasi waxay leedahay geedkaasi waa geed jirid adag geedkaa jiridda adag leh wuxuu leeyahay 5 xidid geedkaa waxaa ka farcama 12 laamood laamaha waxaa ka mid ah kuulbeer maxamed سعيد كول محمد دقعس محمد حسين محمد سمكان محمد سعيد محمد خير محمد آدم محمد حديد محمد آرتر محمد وفرم محمد وحكريا تاني دين كير بودي وعمر محمد تعالى الله الصعدة أنا دي كعرية مرة بعد سكر أنا دي لحظة كل بير محمد عمر محمد سمكان محمد سعيد يعني سعد محمد دقعس محمد حسين محمد سعيد محمد خير محمد آدم محمد حديد محمد آرتر محمد يوفر محمد هذا ما يديكو عليا مركله دقي نفرة كل بير محمد باندير عمر محمد باندير سمكان محمد باندير سعد محمد باندير دقعس محمد بانديري حسين محمد بانديري سعيد كول محمد بانديري خير محمد بانديري آدم محمد بانديري حديد محمد بانديري آرتر محمد بانديري آرتر محمد ما آرتر محمد waxaan kaloo kusoo gabagabeeyay hufane maxamed waxaan halkaa uga jeedaa hadalkan ugu ciyaaraya wax kale maaha geed jirid weyn 5 xidid leh
12 laamoodna waa kuwa inaad barataan qoonna u yeelataan aad iyo aad u jeclahay waxa ujeedkaygu iyo habqabkaygu u yahay inaan halka kan ugaaska guud ee beelweynta reer Sheekh Madhiba aan idhaahdo waxaad ugaas guud u noqotay ugaas Jamaalow beel geed adag jirid weyn leh 5 xidid leh 12 laamood ka baxeen laanna kuma soo kordhin laanna anigu kama reebin 12kaasina waa 12kii geedka jiridda weyni laamuhu bixiyey baa 12ka ahayd anna waxba kuma darin waxna kama reebin ugaas xilkaasi allah ha kugu anfaco allana ha kugu garab galo si wanaagsan oo farxad leh ayaa guulo iyo dibadba arrinta loola dhacay ugaas ilaahayna ha kugu ceeb asturo taasi waa ducaday yacni waxa weyn la isku lahayn ugaas waxa kaloo inta ku darayaa suldaanka guud mahad weyne allah ka gaadho suldaan hore u soco runtii suldaankaasi waa suldaan mubaarak cali xirsi guuleed nuur jaamac weeye magac laba miskiin maahee waarigow hore u soco insha allah bismillaahi kariimna kuwii ummadaada reer Sheekh Madhiba hore u socda allah ka yeelo ummad ku soo meereysata waxyaalaha dullinimada ah ama aan horumarka lahayna